السلام عليكم وعليكم السلام صباح الخير باجوتين ما تعنا ولا فرحسن ولا خصل aan raalgelinayaa ii damqaday dareenka walaaltinimo ii muujiya hadday rag yihiin kuwa haweenkaana dareen dumarnimo ii muujiya way soo dhamaadeen hadda aniga walaalkiisa wanaag aan ku kala baxnay oo farxad oo bil ka maalin hadda walaaltinimo yani guur bis lagu ma walaaltoobo walaaltinimo Soomaalinimo hadda wax walba ii soo baahdo وأنا حقيقة الديار اللي قلتها هاي شيء ولا الكلمة وشلون حاسكي ساعة ما عندنا ولا شيء ساعة هاي حتى وش أرنكاس من حتى أنا أرنكاس والخوا وواعفية حاسكي هراء عطنا ماذا حلواسي وحاومات علمية تليه وحجان سلدك بوليس كترمد وبري مستر أبابو تذكر الصوماليين هالفرينا أقدر فرين تسوقة أفضل بقى جعل جور المسلمين جور أستيقظ إنه يكون إيمان يسوع صلاح شاينا لوضعنا أصحابتنا أهلكنا قراودنا أفضل بقى نلمرك سنة أنا كمان تدي أكل دمان عيب معان ولي جدا لسكور سنجري وأنا لسكور جري وأحول بولالتنا ماذا كوناكسل دين الإسلام كقوة لوني إذا إلهي بدل خير خواسيو أنا إلهي بدل خير خواسيو صومالي dadka lamaanaha ee media ku jira kale ha kala geynina maslax wax uqdado oo qabo malaan aada u mahadsan tahay wax walbo iga soo baato garab Soomaalinimo ku siina ana xumaanta daaro mar hore ku xumeela dada marka xumaanta jecel Ilaahay ka cabsada leh أنا ولكن يا تاي حماكم bulshada Soomaaliyeed oo yani wax walba aragtay in aan heshiinay oo si wanaag oo tartiib ah oo isjiid iyo muran ahayn dadkan kale ay soo hore Ayub Carlo warkiis inta ma ahan arrimo waaweyn waa ninkaas muuqaal kal ilaab ah ka soo baxay ilaa garta waxay tagtay maxkamadii iyo saldhigii tagtay in aniga amarka dawladda aan qaato waana qaatay ay ahayd يعني shalay hadaa runta la isku sheego waxa la dhahay horta nimaan runta loo sheegin been baa u kaysan wiilkaas waa ka gardarneed raalgelin buuxda ka bixiyaa leedahay naag garteeda qaadanaysa haday qaldan tahayna qaladkeeda qaadanayso mihi qof qaladkeeda ku taagnaanayso waa raalgeliyay wiilka walaalkay ama faanti bixi leedahayna waxay ahayd bulshada Soomaaliyeed oo yani wax walba aragtay in aan heshiinay oo si wanaag oo tartiib ah oo isjiid iyo muran ahayn aan ku kala baxnay in ay ogaadaan xukunka dawladda ka soo baxay ahayd oo asina uu fuliyay ana aan fuliyay wax war ani iga soo baxay ma ahan war catoosh ka yimidna ma ahan waa war dawlad ka soo baxay xukuumadda federaalka xukuumad ka soo baxday ahayd xukunkaasna ana qaladkayga waa qaatay qalad أنا وإقرار لي ما قرتين أنا متجد أو ما أنت إيج ما جيسنين أو إيج لي ما جينين لي ما دخل أنت قف لا بعد كل أو يرمى كل دتك عن وحن رالجنا إيدم خذي dareenka walaaltinimo ii muujiya hadday rag yihiin kuwa haweenkaana dareen dumarnimo ii muujiyay ii damqaday aan raalgelina oo muuqaalka aan soo duubay u maleynay inaa aniga aan ku jeesjeesay amarkaas mid ka soo baxo ahaa oo raalgelin duub muuqaalkaas umad yani rag waa wiilka ragga baraha bulshada dadkii baa ku kacay ma fahantiin ogtiin Soomaalidan maxaa la dhahaye dumarka xaqooda laga ma maro fahantiin sida awgeed ana amarka waa qaatay asna amarka wuu qaatay war kale oo yaal ma lahan wax aniga qori ugu haayeen ma lahan de amaray ahayd amarkiina waa qaatani dadkan kale qalbi fahmaa walaalayaal oo iga raali noqdo qalad yaali fahmin ma fahantiin dad baa idhahay tak markay giftii ku direeni aadna saana dhaheemiya shalay xumaata aan qofkas walaalkay aan xumaateena hadaa gift igu direysay giftigaar la noqo waayo walaaltinimo hadaadan wax shalay igu qaban misana hadana walaaltinimo hadaa wax igu qabanayna inaan qof xumeeyo wax igu qabanayso la noqo
horta arinteeda way ii soo dhamaatay ilaaha mahad leh kaskoon dowladda Soomaaliya maxay leeyihiin wiilasha dhalinyarada Soomaaliya taliska booliska degmada waa beri u mahad celinaya oo si sharaf loo soo kala baxay naagana fartay aad u mahad celinaya dadkan kale ay soo hore Ayub Carlo warkiis inta ma ahan arrimo waaweyn waa ninkaas muuqaal kal ilaab ah oo aad u qurux badan oo si tartiib ah maskaxiyan uga hadlayo aan idin soo wadaa YouTube-kayga insha Allah markaan soo dhigane hello waa soo dhigaanay TikTok muuqaal yar aan soo duwaa isku shuba YouTube-ka soo daawada Ayub Carlo wajigiisa iyo dhaqamadiisa gudaha hoose kal iyo laab cadeema u heystaa waan soo dhigaa daawada hadda mid kale aan u celinaa haddii aad shalay dad qaar commenti fiidiyooyada aan duubay oo aniga amar leegu siiyay amar catoosh oo ugu siiyana ahayn qofkaas walaalkay aan kala tagnay oo amar dawlad ka soo baxay ay ahayd oo ugu heystaa aniga qalad iyo fahmayana qalad ha ii fahmin qalad waa dhaca qofka bilaadan qalad wuu ka dhaca qaladkaasna wax micnaa ma lahan oo aniga dhibaato ma wani geysanine halayga raal noqdo dad qalad ii fahmayo oo walaalahayga oo shan dhibkay ka damqanay inaa maanta ku jajastay baxa ande oo kaliya lii fahmin halayga raal noqdo intaas leewaay mid kalena Ayub Carlo sirtiiso kal ilaab TikTok ma sheegi rabaa ninkaas kal ilaab sirtiisa banaanka ayuu joogayso difkii daawinaysa la yaaba naagta maxay sheegaysaa weerarada yaa hadloosaa idee ugu inaana weerar ahayn adiga weerar taa libaax naag baan ahaan okay ay wariyaan yudaalinin iyo wajigiisa oo qarsoon oo luuqa ku jiro YouTube-ka ka daawanaysiin wallahi bilaa talaha ana been ahayn intana kama sheegay haddana iska baashaaleyna kala yalaab